waxaan sheegaynaa markaa lixda kun ee cod halkaa yaalla iyagu wixii ay lahaayeen way ka qaateen waayo iyagu codkoodu kuma badno dadkoodu kumana badno dadkoodu kulmiya Jabuuti dadka Jabuuti ku badan boqolkiiba 70 waa la garanayaa awdal Israel bay ka soo jeedaan eesiyada bulshada ka soo jeedaan waa loo xoog sheegtay laakiin ilaahay nooma xoog sheega waxaan sheegayaa fadhii maayaa lay muudalka fadhii maayo adeerka bari ka dhacaya adeerka wadku ma ilaawin maantana ma helaysid bari waad ka socon hadda waxba xeerin weyday oo dadkaagina aad guratay annagana aad nagu tumatay laakiin waxba namaad yeelin wadankana waan joogaynaa annaga leh wadaa noogu yimid sayla aabaha male annaga leh sayla annaga leh woghaye annaga leh gobolka awdal annaga leh gobolka saylan annaga leh ciisiga bulshada leh iyaga ku ogolaaday iyaga doqonimadooda ku ogolaaday iyaga kala jabsateen markaad kala geyseen reer ku kala geyseen ayay ni ogolaadeen xoog nagu maaysatiin annaga inii kala jabnay maanta waxaan sheegaynaa horta isku soo kooba dhibaatada maanta noogu dara waa dadka lixdii kun iyaga siiyey hadday dadka saan u laynayaan maxay u siinayeen maxay dhakaarasha loo yacabay ka siiyey tuqashbay ka siiyey saylac bay ka siiyey iyagaana siiyey maantana waa sidaan doono weeya markaa dadka waxaan u sheegaynaa annagu haddaan nahay reer loo yacado dhibaatadaasaan haysata dadkaygana waa kuwa xabadda lagu garaacayo dadkuna dhaawac bay u badan yihiin hoos baa loogu dhigay saraa loogu dhigay annagii yacni yidhi bal dadka dhibaatada la qaybsatayna waa lana soo riday rasaasta hoos loogu dhigay nin walba naf baan iminkaan wax xafiiska u joognaa sidaasaan inii sheegaynaa caalamka ha ogaado Somaliland ha ogaato ciise dowlad bulshada ogaada ku daba joogiyo ku daba joogaba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحوي روحان جوجنا ساعة waxay tahay waa sagaalkii ruucla saacada waxaan u kala keenaa shirka jaraa'id aan qabanno dadkayagii muwaadiniinteedii jaaliyaddeedii reer Djibouti ku dhaqanayd oo soo baxday oo doonaysay inay codeeyaan oo si karaamo leh oo sharaf leh oo nabadgelyo ku jirta u codeeyaan iyay ciidamada amniga Somaliland gaar ahaan kuwa gobolka Sanaag ee degmada Saylac فرصة وأمر كفر إلى قرب حتى تسوق ومواطنينتي رئيس ومال الجمهورية كل غنيت شرعي جوجا سيكي حق الدستور بسيئين العضية والنشور تاجي مركا الواحد كوميشن كوجو باغينا هير قرن دكاس ومواطنين لبدجان كي بيكون سجين الوقت الحاضر كا وحوي إن دقيقة عريتها وصل جوابان dadkaasi shalay 2017 muwaadiniin taasi markii ay soo baxeen raali baa laga ahaa marka Muuse wuxuu ka rajeynayay in asaga u codeynayaan buu rajeynayay maanta hadii ay xaraan noqdeen anagu waxa leenahay waa dadkeegii weeyaan maantana xaq bay ku joogaan shalayna xaq bay ugu joogeen hadday u codeeyeen maantana inuu nasiibkiisa ka qaato yaan rajeynaynay waxaan laakiin ma rajeynayn inuu maanta xabad kala hortago dadkii shalay uu codka siiyey inuu maanta xabad kala hortago oo ciidanka u adeegsado oo labadegaanka waqtiga ay ku sugan yihiin ee dawladda Djibouti ay dadkii u soo dhib yaraysay sida uu soo gudan